السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي دلك يدبت مالكس dunida ka joogteen waa walaashin saaro oo mar labaad hawada ku soo noqoto ilaahay iskan soo celiyo waxa maanta aan ka hadlayaa qiso intaana qisada galin walaalahay like iyo sharing iyo comment idinka dhankiina waaye ha iga baqaylinaha like igu roonaada subscribe igu roonaada aniga waxay noqonaysaa dhiirigeli idinkana waad iga faa'iideysanaysiin maanta waxaan noo wadaa qiso ka dhacday muqdisho ayay ka dhacday qisadan waxaan ka calool xumaaday laba wiil oo yaryar qurqurux badan midna 11 sano jiro oo Horyaal TV kasoo duuba ayaan arkay waa la tiiraanooday waa la calool xumaaday awalan qisadeedu waxay ku bilaabanaysaa sidan waxaan iga codsanaa dadkeena Soomaaliya waa dadka adduunka ugu haysto waa dadka qalbiga fiican haday sadaqo noqoto waa dadka isku arxamado waa dadka diintooda boqolkii aan dhihi kara boqolkiiba boqol inkastoo hadda kuwa aan YouTube-yada ka arkayo kuwaasna Allah soo hadiyeeyo insha Allah wana ilaahay inaan ku mashquulno ummadda ilaahay waa qalad ayagana Allah soo hadiyeeyo anagana Allah na hadiyeeyo maasha Allah wadankayga markii burburka dhacay wixii burburka ka dambeeyay way iska dhib qabtaa dadku way iska rafaadsiin rag iyo naago way isguursanayaan iyadoo gabadhii oo ninka guursaday markay isqabaan 2 sano 3 sano 4 sano aabi naag kale ayuu diyaa hal marka naag kale tayeysa gabar kale islaamid been u sheegayso awala inaad tan cawadada sii karto taasna habeenkeeda sii karto kutubka islaamka ayaa sheegay wataaniya labadooda inaan waxaano noqotid equal ina xaq iska ilaalisid ayaa sheegaysa diinta okay wataani taalid ilmaha ayay ku soo biyo shubanaysa adigu waa gabadhii waxay kaaga tagtay guursatay xaaskaadi naag ayaa guursatay way maseertay iyadoo faqri la ahay Soomaali boqolkii 70 waa faqri 30 ayaa wax iska haysta dadka Yurub imaada wax yar iska roo noloshooda iyo dadka wadanka ka tagay laakiin dadka gudaha ku jiro noloshooda waa iska cariiri oo wadanka jooga Muqdisho okay aniga waxaan dhihi lahay ra'li ayaan ku darsan lahay walaalahay qofti qaadadana iyada Allah u barakay qoftaan qaadana ha iska tuurto gadaal ha u tuurto waxaana maqlaha ka soo qabato awalan ilmihii aabihii markuu naag arooso hooyada ilmaha aabaasiis eedo arxam la'ay eedo waa tu ilaahay og yahay hooyo way baxday nin kale ilmo kale ay abaabulaysa hadda kuwii hore beertii waraabi lahayd ayaa biyo u weysa beer kale ma waraabi kartaa aabiya ku soo haray hadda wiilkan yar wuxuu dhahaa mashaakilkaas dham aabaheen ayaa noo keenay war gabaray adigana haddii lagula guursado ha burburin ilmahan candhuuftaada iska laq haddoo wax kugu siiyana arag haddoo wax kugu siinay ummadda ilaahay u tugsa awlaadada shib ka dheh haddaa dhar u dhaqan kartid iyo haddaa masaga u gada kartid iyo haddaa yahay u gada kartid iyo shaah haddaa u gada kartid because haddoo asiga xirigaada hayo wuu kugu soo laabanaa ilmuna aabbahooday ka baqaan ma fahamtay wallaahi aad sidii dagaalkii siyaad baro u dhacay Soomaaliya aad ayuu furitaankooda u badan yahay qabootoogan aad u badan yahay furitaankooda iyo arooskooda aad u fududyaa waxaa hadda goor ay gabar iga sheekaysay islaan weyn ninkii ilmaha ka dhalay ay isfahmi waayeen afar cunug ay u dhashay inay kala tagaan ayay damceen waa markii nabadda jirtay wuu diiday wuxuu dhahay iyada ayaa furitaanka dalbadooso maxkamadda lacagteeda iska dhiibto waa 120 shilinka Soomaali waqtigaas waa 30 sano ka hor ninka maxkamadda ay ku ooysay walaashad ayaa dahab u gaday sidii in lacagtu ninka wala badam ay iyada furitaanka dalbata fiiri Soomaali hal Soomaali si aajirto furitaanka badam iyada ay dalbato dhahay waa inay dhiibtaa lacagta maxkamadda waa inay ilmahayga qaadan waa alaabta guriga taalayna qaadan wala hataa dharkeeda gabadha way ka tanaasulsa oo ka yeedhada wixii dhamaan fiiri sidoo qiimaha oo furitaanka waagaas u lahay waxa kale oo haddana ku darsanaa war qof kastoo Soomaaliya aglaba dadka Soomaaliya jooga waxa laga biilaa dibadda amba gabar ku maqnaad amba wiil ku maqnaad amba inaadeer amba dadka wax ka shid war marka ilmasaas camal la arko marka shan cunugayst oo laba cunug aad keentid digsi badara karinaysa wax kugu qaadama ilaahay baa risaqadooda ku dira awlaadaada oo quraanka aad geynaysa hadaa ku dirta ajir forever cunugaas hadaa afkiisa quraanka aad bartid xasanaadka ku soconaa iyo ajirka ku soconaa ilaa aad ka dhimatay ajirkaas uu ku soconaa
waxaa kaaga dara markaa sida caruurtaada wax u bartid balow allah rana cunugaas inuu beri kuu soo irxamado ma fahamtay waraa anaga isku dayn dadka dibadda jooga haddana aan hadalka ku darsanaa wardaa anagoo 10 qofa bishii $20 shan qof waxaan nahnay 100 10 qof waxaan nahnay 200 hadday 20 qof tahana waa 400 meeqa cunugaa quraan iyo dugsi ka dhigo quraan iyo waxbarasho ka dhiibi karnaa wallaahi ani ma jecli dadka ilmaha fiirsada ma awoodi damiirteeda ma isiinaysa laba walxaata ma fiiri kare ilmo yaryar oo dhibaataysan ma dayi kar waan ooynaa dadka duqoosha kana in la hadalkay ku dhahaan nacam in la dhahaan jeclahay haddii wax hooyada ay ku dhahaan amba qof oo kaa weyn inaad u erxamtid walaalay meel kasta aan joogno dalka iyo dibadda inaan isku warxamano inaan ilaahay ka baqno inaan aan awlaada aan daafacno hadduu ninkaan guursado adigoo ilmahaada u daneynayso oo ninkaada ducooyanaa jiro inuu gurigaada iyo awlaadaada ku xaafido inaa kheyrka aa haysatid hadduu ninkaada ku fiicay aan dadka kula faanin wallaahi waa iska calool xumo waa iska murug aniga saara aana waxaan ka hadlaa in la iscaawiyo oo ilmaha loo caawiyo oo joogo wadamada Soomaali wiilkan yarka 11 sano jira oo dhaha hooyaday aabe way isqabeen afkooyan deganeen aabeena kala guursado hooyaday oo furo hooyaday Hargeysa aaday oo dhahay ayeeyday la joog ayeeyday waxa dhimto qof way baxda Hargeysa aaday waxaan ku soo hora aabihii oo naagta qabay eedadii ayaa la noolaa waaye waxaan imaaday oo dhahay Muqdisho soo galay sidaas u soo galo dha Muqdisho dhibka jiro dha eedada la noolaa waay aabbaha muxuu ka shaqeeyaa aabbahay mooto jabada la mayo dha mooto kale uu sheega magaceeda waa arki doontiin oo fiidiyowga ayaan qaar ka soo gelinaa marka mushkilada taalo eedana ma arxamto hooyana waa baxday wiilku wuxuu dhahaa waxa u sababa fiir wiilkaadi oo 11 jir oo qurux badan oo wadanka u soo baxay markuu ku dhaw waxa u sababa aabahay ayaa saa u sababa wuxuu dhahaa hooyo Hargeysa ka soo noqo isku noqda adiga aabo kii kala ku soo dhalada waa ku dhagay oo sila dhalada kii kale waxa la war hooyada yaaba waa dhimatay leey marka hore carabkiya culus markii labaad meeqa jirto 18 oo 18 ma jiro kooladii uu ku dhagay geedkii oo gasci koolada markii dambe wuxuu dhahay wadi aabe wanoolin daruuf ayaan ugu soo tagay oon u soo aado dha meeshaan aan iska joogaa dha darbi jiifa wiilka yar oo normalka oo cabsanaha waxa dhahayo waxaan dadka ku codsanaa walaalahay inay waxna baraan inay wax noo sameeyaan wallahi qalbiga ay xanuun wallahi haadka qalbiga iyo qalaas ilaahay wuxuuna keenay wadamada gaalada qeyrna way nacmana wadamada gaalada cunugaada iskoolkiisa ka fikirmaysa dugsi lacagta lagu siiyo ayaa ku baraysa koronto ma ugu fikiraysa gaas ma ugu fikiraysa daawo ma ugu fikiraysa dhar ma ugu subhanallah ilaahay waxaan ka baryaa bajad casr waaye inuu Soomaali ilaahay faraj weyn u furo waxaan ka sii calool xumaada qof arkaysa wadamada gaalada uu xataa qaarna waa yaala sharna waa yaala wadankeena aad u fiican yahay ilaahay wadankeena rabbiyo mashaakil kasta waa waxa adiga rabbiyo noo qortay ilaahay u shadhaxda ka qabo yaa la dheenay hebelooba wax sameey kana wax sameey dawladda hebelooba maya rabbiya noo qoray walaah maxfuudka noogu qoranta koorka Soomaaliya hal noqonaysa rabbiya og waa wax ilaahay samada ka keenay waa wax qof aan sheegi karin laakiin aan isku wada duceyna hadaan Soomaalinahna salaad kasta aan dukano maraa jirto salaad ajaaba maalinka jimcaha casirka waa la ajiiba qof kasta ilmahaas adiga waa lash waa hilibkaada mush ani ma dhalin cunuga Soomaalida hooyada hooya u tahay hada aabadana hooya tahay ilmahaas waxaan ka arkay horyaal TV ayaa laga soo duubay fadlan qofta caawi karta ha caawiso wallaahi bijad qofta caawi karta oo wax haysato caawiso dadka wadanka joogana war laba cunug hadaa keentiin is cuntadooda Allah ku soo diray hadaa quraan laba cunug barti $20 waay amba $7 waay rabbi subhanahu wa ta'ala meel kale kaaga sahlay please caawiya please ilmaha dhibaataysan iyo familka dhibaataysan iyo dadka waxaysan caawiya bijad ma ingaga sheekena laakiin
ما سيبضيع إلهي إذا كانوا إنسينا هل مالين مال ما كمل وابحنا هل مالين مال ما كمل الدنيا وكسافرين جرجينا حقيقة عادينا أنا أذكر رحمة يا ربي إلهي إنه نور أرحمة أولاد ديني أولاد إسلاكاس كوذا الرحمة بجد ولا قلبك وحنون ما أنت هذا وحنون أد وحنون ولا لي وما ستين قصة دي وما أنت وليش أسكسوق هذا أنا قماشان أيان أوبحا وليش أيا أركيسين قصدooda kale in si dhameystiraayo waxaan u soo geliyaa fiidiyoyaasha waxaan dhacay because qof ayaa ka istafiidi karto dad ayaa ka faa'iideysan karo dad walaalaha ka faa'iideysan karo dad walaalaha sadaqa ka dhiibi karo dad walaalaha ku ilbaxaaya walaalayaalow meeshaan qisadeedii ku dhamaatay walaalayaalow waxaan inga tagaa fii sabiilillah ilaahay dambigeena dambiga waalidkan la dooro like iyo share iyo comment waa dhankiina جزاك الله خير قفتي عيسى بس قفتي عيسى ما جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.